Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadihii ugu dambeeyay kulan la yeeshay hoggaanka Guddiga La Socodka iyo Dib u Eegista Dastuurka. Kulankan ayaa si weyn diiradda loogu saaray dardargelinta geeddi-socodka iyo wax ka beddelka dastuurka ku-meel-gaarka ah. Kulankan ayaa la sheegay in madaxweynuhu si toos ah ugu cadaadinayo Guddiga Guddoonka Golaha Shacabka ee u gudbiyaan wax ka beddelka dastuurka. Inkasta oo aan jirin qodobo muhiim ah oo aan weli lagu heshiinin, cadaadiska imaanaya Villa Soomaaliya ayaa imaanaya xilli sii xoogaysanaya khilaafka gudaha ah ee Guddiga La Socodka Dib u Eegista Dastuurka. Xogaha la helayo ayaa muujinaya in guddiga uusan ku mideysnayn aragtida dowladda, gaar ahaan waqtiga iyo mudnaanta ay leedahay dib u eegista dastuurka marxaladdan. Guddoomiyaha guddiga ayaa lagu waramayaa inuu u janjeero jihada ay rabto madaxtooyada, halka ku-xigeenka guddiga iyo xubno kale ay si cad uga soo horjeedaan in hadda lagu mashquulo arrimaha dastuurka. Xubnaha diidan dardargelinta dastuurka ayaa ku doodaya in dalka uu wajahayo duruufo siyaasadeed iyo kuwo amni iyo kuwo dhaqaale oo u baahan in mudnaan gaar ah la siiyo. Waxa ay aaminsan yihiin doodda dastuurka, gaar ahaan qodobada muranka dhaliyay, ay keeni karto kala qaybsanaan siyaasadeed oo hor leh, taas oo dhaawici karta xasilloonida dalka. Dhanka kale, Villa Soomaaliya ayaa si xooggan u riixaysa in la dardargeliyo habraaca dastuurka, iyada oo u aragto in wax ka beddelka qodobada gaarka ah ay muhiim u yihiin hannaanka doorashada iyo awood qaybsiga iyo qaab dhismeedka mustaqbalka dalka. Falanqeeyayaal siyaasadeed ayaa tilmaamaya in xaaladdan ay muujinayso caqabado waaweyn oo ku gadaaman geeddi-socodka dib u eegista dastuurka, gaar ahaan marka ay cadaadis siyaasadeed ay kala kulanto hay'adaha sharciyeed oo laga rabay in ay noqdaan mid dhexdhexaad ah. Waxaa kale oo la weydiinayaa saameynta ay arrintan ku yeelan karto xiriirka u dhexeeya madaxtooyada, baarlamaanka iyo hay'adaha kale ee dastuuriga ah. Khilaafka ka dhex jira Guddiga La Socodka Dib u Eegista Dastuurka iyo cadaadiska imaanaya madaxtooyada ayaa abuurtay xaalad siyaasadeed oo cakiran, iyada oo ilaa iyo hadda la helin go'aan mideysan. Waxaa muuqata arrintan ay sii ahaan doonto mid furan, isla markaana saameyn ku yeelan doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha dastuurka. Xuseen Maxamed, Garsoor TV, magaalada Muqdisho.